waxaa nabigu tilmaamaya boqor baa jiray boqoradii hore ka mid ah. qur-aanku inta badan ama nusuustu inta badan ma tilmaamto qisaska sidan bini aadamku sheekada u qoro. bini aadamku wuxuu ihtimaam siiyaa qofka magaciisa, waqtigu meeshuu ahaa, goortay qisadu dhacday, magaaladii ay ka dhacday, waxaasi muhimka maaha. qur-aanka iyo sunnadu markay inta badan ka waramayaan waxay ka waramaan qisadu namuda tusaalaha ay tahay, meesha tusaalaheedu ku jiro. ayan kan qofkii ay ku dhacday, qof magacu doona ha yeesho, magaalada ay doonta ha haato, waqtigu doona, dhacdadan inay sidaa u dhacda qiimo samaynaysaa. ama afraadii samaysay wax badan lagama waramayo. wuxuu nagu leeyahay dadkii idinka horreeyay boqor baa ka mid ahaa. boqorkaasi wuxuu lahaa sixiroole. sixiroolihiisii baa gaboobay. dabeetana wuxuu yihi waan gaboobo, waxaa laga yaabaa inaad jashaydii dhowdahay, waxaad ii keentaan wiil yar oo fahima, yacni hore wuxu fahmaya, oo fatin ah, intelligent ah, oo laqin ah, yacni daakiradiisu fiicantao wixii loo laqimo qabanaya. 3 eray baa meeshan ku jira: boqor, saaxir iyo wiil. boqorada daalimiinta inta badan haddii aanu ilaahay xoog ugu xidhnayn, bini aadamku inta badan qeybka uu ka baqaa, maqanaha. dabeetana wuxuu u adeegsadaa markii aanu ilaahay ku xidhnayn caraafayn iyo faalfaalin iyo waxa kan. waxaa laga yaabaa dadku inay moodaan berigii hore zamanuljaahiligii iyo imika technology alla kuwa technologyga adeegsadaa. wadanadan hadda dowladaha waaweyni ka jiraan ayaa caraafiinta iyo kuwa qeybka ka waramaya waxaana guryaha cad iyo guryaha cas iyo guryaha la sheegay oo dhan. waxaan aada ula yaabay oo ka waramaya Jack Chirac ii xukumi jiray France 14 sano madaxweynaha ka ahaa, ayaa waxay yidhahdeen ceeba hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah niman madmadoobo afrikaan oo kuwan faaliyaaba intuu afrika ka keensaday intuu madaxweynahay oo dhan guriga madaxtooyaday deganaayeen. budgetka dowladdana waxay ugu qoraayeen la taliyayaal, mustashaariin inay u yihiin madaxweynaha, waa faaliyaashiisii si dowladdu lacagta u siiso. waxay dhahdaan maantadan aynu joogno dunida jaraa'idka iyo waxa la iibsaday ugu tirada badan leh waxaa ka mid ah kuwa faalka iyo buruujta iyo xidigiska iyo waxaa ka warrama. marka khuraafada bini aadamku inta badan kama tago haddaanu caqiido saxiixa yeelan, walow uu cirka u diro gantaalo. waxaa la tilmaamaya xadiidkani markaa boqortooyadaasi inay lahayd niman faaliyayaal oo wuxuu sheega. faaliyahii waxaa kaloo xadiidkani tilmaamaya dadka ahlu baatilka ahi si iyana ugu xidhxidhan yihiin baatilku inuu waaro oo sii socdo. kani waa sixiroole baatil wada, da-diisiina way gaadho uu dhimanayaa, laakiin wuxuu rabaa sixirkan iyo farsamadan inay sii socoto. saa daraaddeed bu wuxuu leeyahay halay doono wiil yaroo caqli badan oo fahmo badan oo waxqabasho badan oo waxa loo diro aanay laabaynin halay raadiya buu leeyahay. wuxuu rabaa in mabaadi'diisu faafto. idan dunidan aynu ku nool lahay aadanaha jooga loolanunbu ku jiraa, mid khayr faafinaya, mid shar faafinaya, wax cidla iska fadhiya waa yaryihiin. cid waliba wixii ay rumaysan tahay. daweydinka dunidan arkaa qaanuunadu kolba qolada codkoodu soo batee siyaasiyiintu ay ka shakiyaan unbuu systemka waxbarasho iyo qaanuunada iyo waxa kane uu waacda. imka LGBT iyo kuwa kan iyo waxaan maxaa ka dhigay in dowladuhu ka dambeeyaan caynkan? waa dadka batay, dadka waxaan raadinayaa batay. cod bay leeyihiin dowladuhu iyo siyaasiyiintu ay ka cabsanayaan oo ay rabaan inay helaan kuwa xuquuqdooda in la siiyo oo qaanuunka la mariyo kan la mariyo. idan bini aadamka dunida ku nool loolankaasi ku jira. cid waliba waxay aaminsantahay waxay rabtaa inay meel mariso hore u socdo. ninkan sixirooli wuxuu leeyahay markaa wiil yaroo fahmadiisu fiican tahay, waxqabadiisuna daakiradiisuna wixii loo laqibana xejinaya ii doona. waxaa muuqata in wiilkii la raadiyo lasoo helay. dabeetana sixirooli baa loo geeyay inuu sixirka baro. wiilkii dariskiisii sidii usoo qaadanaya sixiroole ugu tegayey ayuu meel dhexe wuxuu ku arkay wadaad sawmaca ku jira, mank. wadaadadan intay bulshada iskaga tagaan raahibiinta noqdo iska cibaadaysta, nin wadaadoo sawmaca ku jiro arkay. ninkiibuu la fadhiistay, ninkiibaa wuxuu sheegay diin xaqa iyo tawxiid iyo buuga warrama.
ninkii dhallinyarada tawxiidkani wuu la fiicnaaday iyo ninkani wuxuu ka warramayo xaggana dee daris iyo iskuul buu ku jiraa looga baahan yahay inuu si fiican u barto wuxuu sameeyey markuu gurigooda ka yimaade uu kusii socdo sixirroolaha wuxuu la sii yaro fadhiistaa wadaadka xoogaa buu ka dhigtaa dabeetana wuu dhaafaayo wuxuu tagaa sixirroolisiyo uu ka soo dhigtaa markuu sixirroolaha ka soo noqdo ee uu guriga kusii socdana waa la sii fadhiistaa wadaadka waxoogaa kaluu ka sii akhristaa dabeetana gurigoodii buu tagaa sixirroolihii baa wuxuu dareemay wiilku inay yar habhabsaamayo waqtigii dabeetana waa maagay oo inankii waa la dilay reerka laftiisa waxay dareemeen inuu yar habsaamayo wadaadkiiba ku yidhi niyo waxaad rabtaan inaan waxaan dhegaystana waan doonayay dee sixirkii iyo gurigii labadiibana dhib baa ka jirto waa lay tumayaa wuxuu wadaadku ku yidhi sababtay doonaan wadaadadu markay sharxayaan ha u sharxaane markaad sixirroolaha u tagtana waxaad tidhahdaa war guriga ku habsaamay reerkaa yara habsaamiyey markaaad guriga ku socotana qolada guriga waxaad ku tidhahdaa dariskii baa nala yaro dheeraado sixirroolihii ayaan maanta ku habsaamay wiilkii farsamadiisii buu samaystay dabeetana arrinkiisii buu iska watay wiilkani waa ghulaam af carabiga ghulaamka waxaa la yidhaahdaa qofka xaddu tamyiiskana dhaafay buluuqana aan gaadhin yani 7 jirna waa ka wenyay 15 jir meelahana ma gaadhin yani waa teenager 13 12 10 somewhat like that weeyaan wiilku durustiisii buu iska qaataa xaggana xaq baa loo dhigaa xaggan kalena baatilkaa loo dhigaa akhiiran wiilkiioo wixii uu baranayay baranaya ayaa magaaladii bahal baa ku soo baxay xadiiska qaarkood libaax bay ku sheegayaan dabeetana dadka cabsi geliyey wiilkii baa wuxuu yidhi haddaan kala ogaanayaa labadan madraso tawarkeedu sax yahay dabeetana intuu dhagax qaatay buu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ku weydiisanayaa haddii wadaadkaasi waxa uu dhigayaa ay ka khayr badan yihiin oo agtaada lagaga jecel yahay dhagaa kale sixirrooli wuxuu sheegayo ilaa uu dhagaxayga yar ku dil daabadaas buu yidhi ilaahay buu u baryey dabeetana bahalkii buu dhagaxii ku dhuftay ilaahay waa ku dilay waa dhintay wadaadkii buu yimi oo arrinkii buu sheegay inta magaaladii waxa bajiyey bahal dabeetana saasaan yeelo ilaahay baan beriyo dhagaxaasaan ku dhufto waa dhintay wadaadkii inankii wuu tashjiicay wuxuu yidhi waryaa maanta adaa iga fadli badan waxaanan filayaa in lagu itixaami doono ibtilaa inuu soo gaari doono ibtilaagaasi maalinta kuu yimaado niyow hay sheegin waxay idhahdaan wadaadkana laba qadiyadood buu inanka u sheegay markan mid wuu tashjiiciyey qofka bini aadamkii markuu wax qabto ee wax saxa uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaaba fiican qofka la qiro inuu waxa ka sameeyey saa Soomaaliya tiraahdo laa shukra cala alwaajib sax maaha waxa saxa qofku hadduu wax wanaagsan qabtay in la dhiirigeliyo waxa saxa macallinku inuu isku dayo ardaygiisu inuu isaga dhaafi karo ka kori karo uu ku farxo inaad weligaa dadka luqunjibaadh ku haysato aad tiraahdo cidina iyo anigay soo gaadhin meeliina hoose marmara waana reerka u wadaade idinku maaha sax sida saxda ah waxa weeyaan inaad ku faraxdo dadku inuu mustaqbal yeesho intaad adigu garanaysay in ka badan hadday gartaan inaad ku amaado bulshaduna saasay ku horumartaa marka ay hore u socotee dadka hore loo wado idan wadaadkani mar inankii wuu dhiirigeliyey mar kale bay yidhahdaan tawaaduc buu muujiyey oo ah qof isla weyni ka muuqatay waxaan aanunbaa wax garanaya intiina kale waxbaa ogtiin yaana idinka weynoo intaa kusoo dhex jiray ma taagna bay leeyihiin tawaaduc buu muujiyey waa inaan yar ninkuu leeyahay maanta adayga mar saddexaad bay yidhahdeen wuxuu muujiyey dadka asxaabul xaqa ahi in dunida tan imtixaan ay ku maraan yacni dunidu ma aha daartii abaalmarinta daarta saxda ee abaalmarintahay waa xaggee waa aakhiro dunida tani waa daaru libtilaa'i walimtixaan markaad imtixaan nooca ka baxdo waa mid nooc kale unbaad gelaysa saad imtixaanadaa u wado maalin mid dhaqaale maalin mid caafimaad maalin mid waxbarasho maalin mid shaqo maalin mid guur maalin mid caruur saaduun maalin walba problem u xalilaysa problem u wado ay naftu kaaga baxaysaa adduunku markaa waa imtixaan gebigiiba nataa'ijta rasmigaana waxaa la helaa marka aakhiro la tago wiilkii ilaahay buu si dhaba ugu xidhma
tawxiidkii iyo caqiidadii fiicnayda loo dhigay waa biyo dhigeen sixirkii iyo wixii waa biyo dhigi waayeen markay tani biyo dhigtay kadib wuxuu noqday nin dadka ilaahay u barya oo ilaahay ducadiisa aqbalo qaar baa u yimaada indhala ilaahay buu u baryaa ilaahay baa indhaa u bixiya qaar baa u yimaada xanuuno kala qaba ilaahay buu u baryaa ilaahay baa caafimaadiya magaaladii waa isu tilmaamtay wiilkaa yar hadduu kuu duceeyo ilaahay ducadiisa waa ku aqbalaya iyadoo arrinku halkaa marayo ayaa boqorka nimankii xaashiyadiisa ahaa dadkii ku wareegsanaaye la joogay mid ka mid ah ayaa indhabeelay wuxuu maqlay wiil yaroo dadka markuu u duceeyo indhuhu ay baxayaan dabeetana xoolo badan buu soo qaaday wiilkii buu yimi wuxuu ihi waxaasoo xoolaa baan kuu sidaa haddaad labada indhood ii bixiso ay ii fiicnaadaan wiilkii wuxuu ku yidhi dhegayso anigu indhaha ma bixiya buu yidhi ee dadku hadday ilaahay rumeeyeen baan ilaahay u baryaa ee adigu ilaahay rumee ilaahay inuu rabbiga iyo caqiida ninkani waa wiilkan ha yaraado waa daaciya diin dadka u sheegaya ilaahay rumeeyo aamin buu yidhi markaad qof dhab oo ahlu tawxiid a noqoto aniguna ilaahay baan kuu barya in ilaahay indhahaaga kuu soo celiyo ninkii sidii buu yeelay ilaahay buu rumeeyo waa qumanaada wiilkiina ilaahay buu u baryey dabeetana labadii indhood baa ilaahay baa dib ugu soo celiyey wuxuu ku noqday gurigii boqortooyada dib markuu ugu noqday wuxuu u yimi boqorkii baa yidhi waar indhaha ayaa kuu bixiyey boqorkani wuxuu sugayaa dee isagaa dadka rabbi u sheegan jiray markaasuu yidhi rabbigay baa ii bixiyey awalaka rabbun hayri buu yidhi oo macidaan aniga ahayn ba ku rabbiya mid kalaabaad rumaysan tahay rabbii wa rabbuka allah buu yidhi aniga rabbiga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya hooy dowladdii mashkilad cusub baa ku soo baxday wuxuu yidhi ninkan hala caqaabo waa la toorjargareeyey dabeetana wiilkii buu sheegay wiilkii baa loo yeedhay wiilkii wuxuu ku yidhi ma wixii aan ku baray ma waxay gaadhay maanta inaad dadka indhaha ugu bixiso baalkii sixirka aan ku baray waran sixirna indha kuma bixin buu yidhi dadkan ilaahay baan u baryey rabbigood baan u baryey awalaka rabbun hayri oo adiguna ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi wiilkaaga kani wuxuu yidhi ilaahay baa noo rabbiya isna hala toorjargareeya baa la yidhi oo wadaadkii buu sheegay waxaa la yidhi sartu meesha ka qurantay waa ninkan wadanka ninka fidmeeyey ee balada dhigay waa wadaadkan sawmacadash ku jira wadaadkan waxaa la weydiiyey ma ka noqonaysaa waxaanaad rumaysantay mise waa lagu dilaa wadaadku wuxuu yidhi ka noqon maayo hala dilay baa la yidhi god baa loo qoday miinshaar hagso ayaa halka laga saaray dabeetana labaa loo kala jeexay aa laga takhalusay ninkii baa la keenay isna odayga indhaa loo fiiqay waxaa la yidhi haye ma ka noqonaysa adigu may buu yidhi caqiidadu hadday degto arag ninkan shalayta gaalka ahaa ee halkan joogay ee maanta iimaan helay wuxuu diidan yahay walow la dilo inaanu iimaankiisa ka noqonaynin dabeetana may buu yidhi isna waxaa la yidhi hala miishaareeyo isna halkaa laga miishaareeyey labaa loo kala jaray wiilkii bay soo gaadhay wiilka dee sixirkiina isaga haya uu boqorku sugayay oo ninkii wax la barayay mushkiladan kalena isagaa geystay dabeetana wuxuu inta niman ku daraybu wuxuu yihi qaada waxaa geysaan buurta gebigeeda saara uu biqi doonaa markuu arko godkee waxaad tidhahdaan ama halkaasaa lagaa tuuraya ama ka noqo waxaa kanaad wado way kaxeeyeen halkii bay geeyeen markii dacalkii la saaray ayuu ilaahay baryey kan ilaahay buu ku kalsoon yahay ilaahay ou sharkooda adigu igaga filla wuu yidhi buurtii baa gilgilantay nimankii baa ilaahay ka daadiyay askarta ahaa isagii baa badbaaday u soo noqday iskamuu tegin wiilkan iyo mays odhan gaalkii ilaahay baa kaa badbaadiya baxso ninkani waa nin diin xambaarsan oo raba bulshadatan inuu bedelo boqorkiibuu ku soo noqday way kan buu yidhi boqorkii wuxuu yihi meye ciidankaa kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi ciidankan u diyaariyo wuxuu yihi doontaa qaata wiilka nasaara badweynta geeya waxaad tidhahdaa ma ka noqonaysaa hadduu diido badda bartankeeda dhiga buu ku yidhi waa la kaxeeyey baddii baa la geeyey ma ka noqonaysaa baa la yidhi
ilaahay oo adigu sharkooda igaga fillow buu kuwiina ku ducaystay doontii baa qallibantay nimankii waa dhinteen isagiina ilaahay waa soo badbaadiyey waa soo noqday boqorkii buu u yimaadaa waan meeye buu yidhi raggaa kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi kuwaana boqoroo ma rabtaa buu yidhi inaad idisho haa buu yidhi sidaad ii dili kari lahayd baan kuu sheegayaa buu yidhi dadkao dhan isugu yeedh magaalada degan dabeetana meel markaad isugu weedho aniga tiirka igu xidh kadib qaanso qaado jucbadaydaa leebabka ku jira arooskii uu halka ku sitay xabad kala soo baxa gantaalkaa yar ama leebkaa kala soo baxa dabeetana markaad qaansada saarta leebka waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam magaca allaan cuskaday ghulaamka rabbigiiya intaa dhe buu yidhi markaasubaad ii dili kartaa si kaleood ii dili kartaa ma jirto dadka muxuu ku leynayay ilaahay baa noo rabbiya soo maaha laakiin nimanka siyaasiyiinta hadday dantoodu gasho markaana uu iska odhanaya dadka wuxuu ku leynayeen waxaan wadadii ku dhinteen ilaahay baa noo rabbiya buu dadka ku laayay iminkana wuxuu rabaa inuu inankan dilo laakiin dantii waxay ka gashay inuu yidhaahdo maxay bismi illaahi rabbi lghulaam dadkii oo dhan bu isugu yeedhay meeshii baa wiilkii lagu xidhay sidii uu sheegay buu qaansadii u qaatay dabeetana waa bahashii waa ku riday wuxuu ugu ducaystay magaca allaan u cuskaday oo wiilkan yar rabbigiiya leebkiibuu ku ganay halkaasuu kaga dhacay dhafoorka wiilkii yaraa halkiibuu wiilku gacanta saaray waa dhintay magaalada dadkii joogay waxay idhahdeen wiilkaa mar haddii laba dili kari waa in rabbigii loo cuskada mooyaane aamanaa birabbi lghulaam bay idhahdeen marka annaguna wiilkani rabbiguu rumaysanaa ayaanu rumaynay bay idhaahdeen boqorkii baa loo yimi oo waxa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay soo maaha inuu diini faafto dadkani diinta rumeeyo tii baa dhacday baa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay wuxuu yihi waxay yeeshaan magaalada sekad walba godad ka qoda dabeetana dab ku shida xaabada dugdhiga markay holaacdo guryaha dadka ka soo saaro waxaad tidhaahdaan ma ka noqonaysaan mise waa laydin gubaa wixii ka noqda sii daaya wixii kalena guba dadkii markii meeshii la tubay ee la ydhaha ma ka noqonaysaa may bay yidhaahdaan ilaahay baan rumaynay waa lagu ridaa akhiiran waxaa soo gaadhay qof dumar ah oo ilmo yar naaska jaqsiisanaysa markii ay meeshii timi bay waxoogaa dib isu yara geejisa ilaahay wuxuu ka hadlayay ilmaheedii yaraa waa 3 ghulaama uu nabigu lahaa iyagoo dharabta saaran bay hadleen nabi ciise ka mid ah wiilka yar baa ka mid ah jurayj wiilkii looga hadlaya ka mid ah waxay ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadlayay dabeetana wuxuu ku yidhi maxay yaa ummaah isbiri fa innaki cala alxaq hooyoy sabir xaq baad ku sugantay buu leeyahy kii naaska nuugay hooyoy sabir xaq baad ku sugan tahay kadib ayaa islaantiina la gubay qisadu wax ka dambeeya laynooma sheegin waa intaa